wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland ayaa maanta waxay la wareegtay goob lagu shaybaari doono xoolaha ka dhoofa dekedda magaalada Berbera oo laga hirgeliyay magaalada Berbera waxaana munaasabadii lagula wareegayay xaruntaasi waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland maamulka gobolka saaxil ka degmada Berbera iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaana ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka saaxil Dr. Axmed Xaaji Cabdilaahi waxaanu ka waramay goobtani xafladan aan ku haynaa waa shaybaarkii weynaa ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga maanta furitaankii maahay wax weeyaan furihii baynu kala dhulkan waa 100 mitir iyo 120 mitir duqa magaalada siiyay iyo barasaabka ka hawlgaleen insha Allah waxaan ka xoroobaynaa xafiisadii aan ku hoos jiray maxjarada dhammaan halkaa waxaan ka dhisan doonaa xafiisadii wasaaradii iyo gasaawsadii مسؤولين xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii hore Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay bogaadiyeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland sharaf weyn bay noo tahay annaga iyo idinka iyo qarankaba dhammaan inaynu kolley muddo laabkan dhismihiisa ama buildingkan dhismihiisa aynu ka shaqeynay maantana waa gabagabo furihiisana waxaan ku wareejin doonaa kulli wasaaradii shaqada ku lahayd ee xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluunka qaranku wuxuu u baahan yahay wuxuu leeyahay shicibka haddii aanu nahayna waa garab taaganahay qaranka in loo sameeyo wuxuu leeyahay maadaama uu yahay laab wax ka tari doona xoolaha baaritaankooda hadday noqoto kuwii dhoofiyay baaritaankooda waa wasaaradda ay u yeelanayso awood inay ku baadha halkan dabadna ogaato waxa jira ujeedadiisuna waxay ahayd in dawladdu yeelato laboratory ay leedahay oo masalan waxa xoolaheena baadha inta badan saddexda maxjar ee halkan ka samaysan xoolaha haddii la soo celiyo mar labaad sababtii lagu soo celiyay haddii la isla baadha kii diray haddana dul baadha taa waxaa laga kaaftoomayaa oo halkan wasaaradda ahayd yoolkeeda iyo himiladeedu inay laboratory dawladdu ay leedahay halkan wax lagu baaro tabaadna haddii uu maxjarkii uu diray xoola marka hore xanuunka laga helay uu kiiska isagu yeesho maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland Marwo Yurub Abiib oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka warameen ahmiyadda ay u leedahay goobtani Somaliland noo farxada ah in wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo kalluumaysiga muddo badan soo waday hawlahan laabkan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta inoo suurtageliyay inaynu dhismihii inoo gabagaboobo oo wasaaradda ay maanta la wareegto wasaarad kasta iyo dan guud kasta oo la dhisayo waxay degmada Berbera ballan qaadaysaa halka ku habboon iyo cabirka ku habboonba inaan siin doono ayaynu la wareegaynaa dhisme ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan maxaan ku raahdaa ka hirgalay degmada Berbera waa laabkii weynaa ee xoolaha runtii waan ognahay xoolaha ugu badan inay ka dhoofaan halkan marka laab aynu inagu leenahay oo qaranku leeyahay oo aynu kula soconayna caafimaadkoodii kuna ilaalinayna inaynu helaana muhiimad weyn oo horumar la qaaday weyn inaanu laabkan daawooyinkiisa iyo baaritaankiisa yaallay aanu ku ekaan kaliya kuwa dhoofaye uu wax ka tari doono ka gobol ahaanna xoolaha maxaan ku radaa gobolka ku dhaqan laftooda lagula socon doono caafimaadkooda iyo waxooda waana ku faraxsanahay inaan dhismahan maanta la wareego insha Allah wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxay ku jirtaa hawlo badan oo maxaa la yiraahdaa ay saaxil ay u badan tahay hadii la yiraahdo laabkan wuxuu insha Allah anfici doonaa inay wasaaradda ay tahay dawladda wax qabadkeedii isla markaana ay noqon doonto meel dawladdu ay leedahay oo ay waxyaabaha ka soo baxayaan wax la hubo dhakhaatiirtu bacdamaaba ay dhakhaatiirtii dawladda yihiin wasaaradda ayna iyagu ahayn ganacsatadii maartay hawshan fulinaysay ay noqon doonto meel aan waxba ku qarsoomin isla markaana caafimaadka lagu hubin doono wixii caafimaad qaban toos loo ogaan doono wixii xanuunsanaya toos loo ogaan doono lagu reebi doono oo ay noqon doonto meel kalsooni badan lagu qabo insha Allah hadii la hayraa ka wasaaradahan xukuumaddu waxay u taagan tahay baahida qaranka ay maartay ay aad iyo aad meelii kulba ay ka jirtay iskarab taagto Berberina mar haday tahay dhuuntii ay wax noo soo marayeen shaybaarkan wuxuu noqon doonaa mid caalami ah oo caalamka ka muuqda insha Allah Soomaaliland ka muuqan doona waa Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada Berbera